Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waana la daawadal kusoo dhawaada channelka Socdaal Media Network. Waxaa idiin soo jeedin doona mawduuca maanta anigoo ah Cabdalle Maxamuud. Ugu horreyn qof kasta waxaa laga codsanayaa in uu kusoo biiro channelka oo subscribe saaro, like saaro oo sii share gareeyo intii awoodiisa si aad uga faa'iidaan mawduucyada iyo barnaamijyada aan soo gudbin doono haddii alla idmo annagana ay nagu noqoto dhiirigelin iyo horumar. Inta haddaan kaga imaado mawduuceena maanta waxaa ku saabsan yahay suurtagalnimada qofka Soomaaliga ah in uu safar dibadda aado iyo caqabadaha hortaagan iyo fursadaha uu haysto. Labada qodob insha Allah dul istaagi doonaa maanta oo ku saabsanaan doona mawduuceena maanta. Haddii aan ku horeeyo caqabadaha hortaagan qofka doonaya inuu galo safar dibadda aado ama uu dhoofoba aan idhaahdee way fara badan yihiin laakiin ta ugu muhiimsan unbaan insha Allah kasoo qaadan doonaa. Waxaa ka mid ah caqabadaha ugu weyn waxaa ka mid ah ama la odhan karo waa ta ugu weyn waa awood darrada baasaboorka Soomaaliga ah oo haysto qofka Soomaaliga. Caqabada labaad waxaan odhan karnaa waa dhanka dhaqaalaha. Run ahaantii qof haddaan dhaqaale badan hayn waxaa laga yaabaa inaan wax badan u suurtagelin waxyaabo badan uu ka xidho. Hadduu qof dhaqaale haysta yahayna dee waa qof soo caalamku u baahan yahay marka way u fududaanayaan waxyaabo badan. Marka intaas kale ugu muhiimsan. Haddii aynu qodobka labaad isdul taagno oo isna ahaa fursadaha iyo wadooyinka u bannaan qofkaasi fursado badan baa jiro oo laga faa'iideysan karaa jira. Waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada haddaynu eegno scholarship-yada. Haddii aad heshid scholarship caalamka ka heshid meel ka mid ah uma baahanaysid inaad process dheer martid kaliya waxaad la xiriiraysaa meeshaasi aad ka heshay scholarship-ka oo ku dhammaynaysa hawlo oo dhan. Sidoo kale waxaad heli kartaa haddii aad iska bixinaysid jaamacad aad u aadaadid jaamacad iska aad u codsatid kadib ay kaa aqbalaan documentation-ka iyo aqbalaadaas ay kaa aqbashay baad ku codsan karaysaa dalku galkana. Sidoo kale waxaa jiri kara arday samaysa research-ka sida ardayda qalinjebisa oo kale iyadana way safri karaan iyo waxyaabo kale oo fara badan oo lamid yihiba way jiri karaan waxbarashada la xiriira sida seminaarada iyo research-kaas iyo graduation-ka ama qalinjebinta oo kale haddii aad wax ku dhigato oo kale. Waxaa kaloo aad heli kartaa shaqada haddaad shaqo ka heshid organization ama shirkad dibadda laga leeyahay haddaad ka heshid shirkadaas waxaa kusoo saaraysa waxa la yidhaahdo work permit ama job offer oo caddaynaysa inaad shaqo ka heshay organization-ka ama shirkadaasi aad shaqo ka heshay kadibna waxaad ku codsanaysaa dalku galka ama fiisaha waddankaas ay ku taalo shirkadaasi ama ay ka shaqayso. Waxaa kaloo u tagi karaysaa caafimaad ahaan baad u tagi karaysaa oo aad ugu safri karaysaa. Run ahaantii fursaduhu waa ay badan yihiin oo qofkii hadduu waxaan uu sii dabagalo uu sii baadhbaadho research sameeyo waxyaabo badan buu intaa ka faahfaahsan buu ogaan karayaa. Kulley mawduuc gaar ah ka samayn doonaayo fursadaha u gaara iyo sida shaqooyin lagu codsado waddanka dibaddiisa iyo shirkadaha qaabka ay u bixiyaan shaqooyinka loo apply gareeyo. Waxaa jira application u khaas ah oo shaqooyinka ka bannaan caalamka oo dhan la soo geliyo waxaana la yidhaahdaa LinkedIn. Waxaan idiin soo dhigi doonaa insha Allah shaashada ka arki doontaan. Application-ka LinkedIn-ka waxaa la soo geliyaa dhammaanba shaqooyinka ka bannaan shirkadaha iyo organization-yada caalamka meel kasta oo ay tahay. Halkaas ayaa laga codsadaa oo laga buuxiyaa oo qof kasta uu ka helaa. Insha Allah mawduuc gaar ah aynu ka samayn doonaa haddii Alla idmo. Waxaa kaloo intaas soo raacda barnaamijkan kale dib u dejinta la yidhaahdo oo isagu qaxoontiga waxaa la xiriira laakiin waxa uu khaas u yahay dadka qaxoontiga ama ka diiwaan gashan hay'adaha qaramada midoobay kadib. Inahaas baa kulley ugu muhiimsan oo fursado qofka u ah. Barnaamijka kan xiga ayaan insha Allah aad u sii qaada dhigi doonaa fursado cusub iyo kuwanba aad u sii iftiimin doonaa. Mar labaad waxaan ka codsanayaa in qof kasta oo daawada muuqaalkan uu ugu yaraan hal qof sii gaarsiiyo isaguna uu kusoo biiro channelka oo subscribe saaro. Intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa haddii Alla idmo mawduuceena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.